wariyaha iyaga Cabdishakuur Faarax Cigalle oo ka qayb galay munaasabadaas ayaa warbixintan inooga diyaariyay. xafladani oo ahayd mid lagu abaalmarinayay arday ku tartantay Quraanka Kariimka iyo kuwa ka soo gudbay fasalka hoose ee iskuulka Bukur Integrated Academy ayaa waxa lagu qabtay hoolka iskuulka ee ku yaala bartamaha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. waalidiin, macallimiin, arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Islii ayaa ka soo qayb gashay munaasabada ardayda lagu abaalmarinayay waxaana wajiyada ardayda la guddoonsiiyay abaalmarinada ku tartamay Quraanka Kariimka ka muuqday farxad. magacayga waa Firdawsi Cabdiraxmaan kaalinta koowaad galay iskuulkan Bukur ku galay Bukur Integrated Academy ku galay waana ku faraxsana kaalinta galay alxamdulillah. next week waa rajayna kaalintan mid ka sareysa inaan galo waalidkeena waa u mahad celinaa. magacayga waa Yunus Maxamed maanta faraxsan Saa'id faraxsan waxa ay galaaska saddexaad waxaa noqday nambarka koowaad waxaa rabaa inaan dhaqtar noqdo marka aweenaado sida u jeedaa dhanka aamka. magacayga waa Caymaan waxaa ku jira galaaska labaad waxaa noqday nambarka labaad waa ku faraxsanay waalidiinka waa faraxsanay. qaar ka mid ah waalidiinta ardayda loo qabtay munaasabadani ayaa uga mahad celiyay maamulka iyo macallimiinta iskuulka Bukur Integrated Academy sida wanaagsan ay caruurta wax u baraan. أود أن أوجه شكري لله عز وجل الذي جعلنا من أهل القرآن ثم أوجه شكري للأساتذة الكرام الذين أتاحوا لنا الفرصة لتلقي القرآن ومدارسته ببذل جهدهم ووقتهم على أطفالنا أجيال المستقبل فجزاكم الله خير الجزاء. waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida ciyaalkeena ugu diyaariseen inaad diinta bartaan khaasatan quraanka Ilaahay oo ah waxa la barta adduunka waxa ugu fiican waxa ugu qiimaha badan leh. waxaan idin leenahay Ilaahay ajirka xasanaadka idin saaro. maxamed Cumar oo ka mid ah maamulayaasha iskuulka Bukur Integrated Academy ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka ay ardayda ugu tartameen xafdinta Quraanka Kariimka waxa uu waalidiinta ardayda ugu baaqay inay ku dadaalaan waxbarashada caruurtooda. waxaan leeyahay taxfiidka iyo waxay ka kooban tahay Bukurtan u jeedin qaybta primary-ga waa laba surface ama laba adeeg oo Bukur ay idin keentay Quraankii iyo iskuulkii labadaba waxa ka socda dadaal isku mid ah oo aan ku dadaalayno in ardayga number 1 uu ku hubaysnaado akhlaaq. number 1 maxaa noo ah akhlaaq, number 2 waxaa noo ah aqoon. labadaas inaan ku hubayno astaanta Bukur ah. ilaahay fadligiis taxfiidkii markaan furnay Bukur 4 bilood markay noo dhamaatay ardayaan diyaarin oo 5 juz oo Quraanka ah iyo juz Quraanka ah tartan uga qayb galay meel maaragtay weyn tartamada jihaadka tartamada qabta ama dhinacyada tartamada qabta wadanka qayb kamid ah uga qayb galeen annagaana xafidsiinay dadaalkaas 4 bilood aan ku qabanay. waxa kaloo Bukur ay ku faani kartaa ilaahay fadligiis ardaydu markay noo timaado wixii aan barno ay soo dhaafaan waa yaqaaniin. qodobka number 1 aan raadin waxay tahay ardaygan meeshu soo maray ma yaqaana arday fara badan oo xafidsiina jira hadhowti waxa arki doontaan abaalmarinta ku arki doontaan kuwa 10 juz ku tartamayay halkan ay ku xafideen kuwa 5 juz ku tartamay halkan ay ku xafideen kuwa 3 juz ku tartamay halkan ay ku xafideen kuwa 2 ku tartamay kuwana mid ay ku tartameen dhammaan halkan ay ku wada xafideen aad joogtaan ilaahay fadligiis way kadibna dadaalka macallimiintu ay bixinayaan ilma farti la baray alifkii oo dhan 9kii alif iyo higaadi muddo u dhaxaysa 7 ilaa 9 bilood lagu baray isku celcelis Bukur ayaad ka helaysaa. marka hadaad rabto marka taxfiid tayaysan Bukur kaale hadaad rabto primary tayaysan oo ardaydu ay ku hadli karaan luqadaha ay wax ku bartaan ee Sawaaxiliga iyo Ingiriiska ah Bukur kaale waa arkaysan saakay ardaydii in soo dhaweysay kuwii kale wax jeedinayay dhammaan waa u jeedeen waana waxaan ku faraxsanahay kuna faaneen waana wax niyadii lagu furay Bukur waa niyada Bukur lagu furay waa tayo waa in arday tayaysan uu soo baxaa waliba dhinac kaliya ma aha laba dhinac ka tayaysan. ardayga halkan aad keenta ardayga tan buu leeyahay muxuu ka bixi karaa muxuu qaadan karaa muxuu fahmi karaa inta marka inaad maaragtay macallimiintii iyo maamulkii ku tixgeliso oo tayada ardayga iyo quality-giisa xoog saarayna number 1 noo aan isku kaashano taas insha Allah taala oo hawlahaas aad nagu garab istaagtaan oo in ka codsanayna.
cabdishakuur faarax cigalle wararka RTN magaalada Nairobi.